بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام Soomaali suulba maqalkeedii soo gaaray anigoo UK ah. Channelka aan naga daawaneysaan waa King UK official. Iyo maasmo insha Allah. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay. Maanta waxa ka hadli doonaa xalay waxa la soo fasaxay xalqadii I hope afraad inay tahay. I hope xalqadii afraad amal inay tahay insha Allah la soo fasaxay musalsalkii arday. Insha Allah waxaan rabaa inaan xalqadaas qayb yar oo kamid ah oo ani ahaan aan wax uun ka faa'iiday in halka ka sheego insha Allah mana ku dheeraan doono musalsalka intuu si bilaawanin musalsalka hordhiciisa trailerkiisa waxaan ka bixiyay reaction anigoo dhahayo insha Allah musalsalkaas waxyaalihi aan ka faa'iiday waa idin la wadaagi doona sababtoo ah kaamiramanka qofka caadi u daawanayo qof walba wax buu ka faa'iidayaa insha Allah shan shay oo ka faa'iiday xalqadii xalay oo gabadha in la kufsaday oo kale lagu matala insha Allah shan shay aan ka sheegi doona insha Allah jilitaalka filimka arday horta waxaan ka faa'iiday waa mid koowaad naag inay naag kala shirqooli karto xaqiiq waaye ani aan waan maqli jiray gabar loo adeegsadaa gabar shirqoosho waa maqli jiray laakiin xalay si aad iyo aad aan u aaminay boqolkiiba boqol naag way shirqooli kartaa midda ugu horeysa waa midaas insha Allah midda labaad haddii aad u jeedid waxaan xumaanta u samaynayo waa aamintay tusaale meel xumaan ka socotay waxyaalo uu ku keenay wali waa la sii socotaa qofkii adigoo og qofka wixii aad ka malaysan kartid iyo koowdii hore wuxuu ku dhax xaflad baan aadayna haddana wax xumaan aan kula soo bareeray xumaantii aad adig ka malaysanaynin aad aragtay wali waad sii aamintay doqonay dabka maamahadaas dadka inta ugu badan heesay ku maqleen laakiin doqonay dabka baal dhaha waa maamaha Soomaaliyeed insha Allah mid saddexaad waxay tahay xumaan sameeyaasha markii laga hadlo damir xumadooda waa uu isaga dhigay inuu gabadh u baahan yahay oo kale si qof jacayl iyo waxyaalo kale uu uga baahan yahay oo kale waxyaalo mid saddexaad oo ka bartay waxa kamid ah xumaan micnaa kuwa xumaan sameeyaasha labada wiilood qaasatan wiilka gabadha iskuulka la dhiganayay markuu xumaanta ku sameeyay gabadha waa uu isaga dhigay qof u baahan gabadha jaceylkeeda nis weydiisay inta ugu badan gabdhaha markii la baranayo xumaan laga maagan yahay ama gabadha jirkeeda loo baahan yahay xaqiiq waaye lama dhaho abaayo jirkaaga u baahnaa lama dhaho waxa la dhahaa abaayo waa ku jeclahay si ay gabadhu soo dibacdo xiriir iyo waxaas u ogolaato dan la balansado waa sida waa uu isaga dhigay waqtiga hore aslan uu isaga dhigay inuu gabadhii xiriir ahaan uu uga baahan yahay dan uu isku bedelay waa wax isweydiin mudan midda afaraad oo ka bartay filimka arday xalqadiisa xalay la soo daayay waxa kamid ah xumaanta waayadan jirta ee lagu sameeyo gabdhaha Soomaaliyeed waa xaqiiqdaas horta waxay kamid tahay kuwa ugu muhiimsanaa aan ka bartay xalqadii xalay la soo daayay filimkii arday aan ku faraxsanahay sababtoo ah xumaanta waayadan jirta ee lagu sameeyo gabdhaha Soomaaliyeed ma ahan wax yar ama wax meel ku kooban ma aha wax aad iyo aad u tiro badan waay midaasna midda afraad aan ka bartay filimka arday okay midda ugu dambayso ku soo gunaanadaya xalay aan ka bartay filimka arday waxa kamid ahayd midda ugu dambayso oo ka bartay filimka arday xalqadiisa xalay la soo fasaxay waxay ahayd gabadha markii xumaanta lagu sameeyo بعد الحمان نحن حمانت كدب حمانت مركي لو سمي كدب gabadha nafta muuqaala laga haya nafsadeedana waxay ku qancin doontaa in muuqaalkaas haday wax sheegto balaanka loo bandhigi doono sida awgeedana nafsadeeda si hoose waxay ugu qancinaysaa inaysan arintaas banaanka keenin markii si loo fiiriyana xaqiiq waaye magaalada Muqdisho iska daaba adduunka oo dhan waxaa jirta markii gabadhan ahaan loo fiiriyo boqolaal kumanaan milyan oo ayadoo kala ah oo muuqaalo laga hayo laakiin aan ceebtooda la ogeyn haddii aan muuqaal laga hayn lahayn maanta inta la ogay in ka badan ayaa la ogaan lahaa in gabadha ay qarinayso si hoose nafsadeeda waxay ugu qancinaysaa inaysan waxba lagu sameeynin aydanna waxba aysan sheegin sababtoo ah haddii ay wax sheegto ceebteeda ayaa banaanka imaanayso gabadha kale shirqooshayne waa doqon sababtoo ah waxaa jiro gabdho badan oo sidaan oo filimka urta markii wax la jilaayo sidiisaba waxa laga jilaa markii dhanka runta ah sababtoo ah wax dhacaya la sameeyaa sidiisaba ama wax la qoray wax dhici doono sidaas oo ay ku saabsan yahay film sidiisaba marka gabadha kale qarinaysana kale fiiri hadda ayada wax bay jilaysaa laakiin waxaa jiro gabdho badan oo sidaa rag garab u siiyo gabdho kale oo saaxiibadooda shirqoola meelaha geeya hadii ay sheeg isdhihi lahayd gabadha ayada ma sheegi karta laakiin waxa sheegi kara gabadha dadka qarinayso ayada u geynayso gabadhaas sheegi karta gabadha xumaanta lagu sameeyay hadii sheeg istiraad muuqaala laga haya marka insha Allah maanta muuqaalka intaas idin ko wadaagay oo xalqada afraad ka faa'iiday jilitaalka iyo filimka daawashadiisa insha Allah inta ka kulmeen muuqaalka waxa idin leeyahay si next video bimkuraati audio leeyahay mana abahooda